shirkan jaraa'idoo ay wada jiro qabteen wasiirka wasaaradda dib u dejinta gudoomiye ku-xigeenka hay'adda NERAD iyo barasaabka gobolka Awdal waxa uu iftiiminayay laba arrimood oo culays baan ku haya gobolkani Awdal ugu horreyn waxa ay ka hadleen qadiyadda gooniisu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadallada maalmahan dambe ka soo yeedhaya qaar ka mid ah qurba jooga ninka maanta Awdal isteed waday maanta toogii waxyaal kale u jiray magaalada Soomaaliland lagu dhisay halkan dib u shaqada Awdal baa ku xukuumatay oo diiday oo keenay Soomaaliland baan halkan ku dhistay halkan qalin ku saxay tii aan dhisnay goormaan ku dhisnay baan hayno wax la fiirsan gaay Soomaaliland maanta ma aha mid gorgortan Soomaaliland maanta mid la isweydiinaya baa waxaan u leeyahay inaka dibadda ka hadlayo 1929 iyo halkii ibn lahayd markii geesiyaashii Awdal u dhashay dadbaadada dadku uga wadeen markay dadka walaalaha nabadda ka sameeyeen markay odayad wax ka badayeen markaasan wax ka badayeen waxaan leeyahay maanta midnimada iyo ka qayb ahaanta gobolka Awdal iyo Sanaag jamhuuriyadda Soomaaliland mid ay dhaqdhaqaajin karaan ama lulan kartaa maaha sidaas oo kale waxa ay tilmaameen in xiisada dhaqanka ee gobolka Awdal ka aloosan ay maalmahan dambe marayso meel aad u xasaasi ah isla markaana aanay xukuumaddu dul qaadan doonin waxaan si xikmad sharaf iyo maamuus ku jirto ugu codsanayaa salaadiinta Awdal iyo Sanaag oqaasha odayaasha indergaradka iyo inta nabadda jecel in lagu soo dabaalo bulshada sidii ay ahayd wadajirka wada noolaanshaha wax wada qabsiga iyo midnimada ilaahay garaadkii loo noqdo iyo salaadiintii intii soo gaadheeyay way bay joogtaa inta cusubna halkii halka hore ka qaado garaadkii loo noqdo magaca beelaysan total yahay joojiyo wasiirka wasaaradda dib u dejinta mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan ayaa waxa kale oo digniin kulul u jeediyay waxa uu ku tilmaamay siyaasiyiin baryahan dambe ku dhex milmay arrimaha dhaqanka niman shaqaalaha jira oo dawladda mashaarka qaata oo magaca beelaha ku dhex jira oo ay ka kursiga dawladda ku fadhiya ama gobolka fadhiya meel ka fadhiya inuu magac kale ku shaqeeyo ma ogolin taana waxaan uga digayaa talaabo martoon mar daba ma tuu qaadan booliska dawladda ka soo saartay waa ay madaxii soo baxaya dibarkii hore aan jeclaan oo nabadgelyo darrada ka socdo gobolka dul qaadan meel dumarada iyo carruurta la isku beenayaan dul qaadan meel afnishaar dhex soodana dul qaadan meel Cabdalla Ali Yusuf shabakada wararka Luqay News magaalada Boorama